Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Walaalaha ku xiran beedkeena Soomaali Tijaabo 11 soo dhawaada ayaan leenahay. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo khudbada. Horta ani marabi hadda khudbada hadda leef u socotaa leef. Marka waxaan rabaa fikradihiina inaad dhageysto. Khudbada hadda leef u socotaa fikradihiina aad ka dhageysaa. Inta barnaamijka bilaabin hay'aysiinta yar dhageysta. qofka raba wuxuu soo gali karaa lacag waaye waxaana ka heli doontaa shirkadda haldoorka miyiga ayaa ka helaysa insha Allah. waa rinji waxaa loo talagalay gabdhaha timaha ka yihiin ayaa timo dheer keenaysa rinjigan haddaad timo yaryar leedahay wuu ku anfacayaa fadlan rinjigan shirkadda haldoor ayaa soo gato qiimihiisuna waa raqiis waa $2 oo kaliya okay intaas taa u imaano farmaajo waa ognahay inuu xilka isku dejinayay diiday inuu kursi ka kaco waa ognahay wuu diiday kursi inuu ka kaco ninkii la yiraahdo had maalmaha dambe waxay isku kacsanaayeen musharaxiinta isku kacsanaayeen hadda farmaajo khudbad ayuu leef khudbeynaya leef khudbadiisa insha Allah inspirationka waxaan soo dhigayaa linkiga aan soo dhigayaa khudbada farmaajo dhageysta hadda xada dhageysan okay meesha laba su'aal taalo farmaajo maanta wuxuu hor fadhiyaa baarlamaanka adiga daawada fikradaada isleedahay farmaajo dalka wuu ku xishoon doonaa xilka wuu iska dhigi doonaa mise qorshe kale oo xilka ku joogo ayuu kiisanayaa waa ognahay madaxweyne walba 4 sano oo dalkan xukuma anaga Turkiya waxaa la isku xukumaa 8 sano laakiin anaga waxaan 4 sano marka adiga fikradaada ma isleedahay kursiga oo isku dejinayo oo ka kacaya ama qorshe kale ayuu keenay fadlan dhanka hoose ee kumatiga nagu soo wadaag linkiga inspirationka ayaan soo dhigayaa meeshaas ayaad ku soo gagabeynaya fadlan waxaa jirto YouTube kale oo magaciisu qoran yahay Cabdi Axmed la yiraahdo YouTube ka saara waa inaad soo booqatiin kan 20,000 ayaa gaarsiisay kan kale waxaa rabaa 1,000 ayaa gaarsiisay